Kalasar lahu, kalasor, kalasar lahu, kalasor, inaan doonayo caawa inaan iclaamino annagoo ah group dhalinyaro inkastoo ku dhayo dhalinyarada cuslaatay ahay oo dhalinyarada aanan ka madhnayn dhalinyaro waxgarad baayaca mushtar wadaniyiin rag badan oo nin garbood ah waxaanu soo jeedinay proposal arrin aanu doonayno isimada beesha sool sanaag cayn iyo maamulkeennu in ay arrintaa kor u qaadaan oo baahiyaan arrintaasi waxay tahay waxaannu ku baaqaynaa in isimada Soomaaliya oo dhan la casumo oo sool sanaag cayn maamulka Khaatumo iyo gobolladeenna oo dhan ay casumaan oo loogu yeedho inta isim jirta Soomaaliya hadduu wabar yahay haddii la yidhaahdo malaaq haddii la yidhaahdo islaam haddii la yidhaahdo garaad haddii la yidhaahdo boqor magac kasta uu la baxo isimada Soomaaliya oo dhan waxaanu ugu baaqaynaa oo ku casumaynaa qudhaca Buuhoodle oo ahaa meeshii gobonnimada Soomaalida ugu horreysay ee dawladnimo lagaga dhawaaqay waxaanu leenahay waxaanu aragtida aanu leenahay waxaanu isleenahay waa takaliya Soomaaliya isugu imanayso 300 oo koran baanu ballan qaadnay inaanu bixinno 300 oo koran oo lagu soo dhaweeyo inaanu bixinno iyo wixii la socday casumaada in kasta baa socdo waxaanu dantaanu ka leenahay waxa weeyaan isimada Soomaaliya oo dhan halkii ay gobonnimada Soomaalidu ka bilaabatay inta la isugu yimaado quraan la akhristo oo Soomaali loo duceeyo inta weeyaan ajandu baaqa waxaanu ka codsanaynaa oo u igmanaynaa isimada sool sanaag cayn iyo maamulka Khaatumo in ay arrintaa iclaamiyaan oo la gaarsiiyo beelaha Soomaaliya oo dhan gees ka gees waxaanu leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya waa mid weligeedna mid bay ahaanaysaa kii cadhoodana wuu soo noqon wixii kor loo tuuraa waa soo noqonayaan meelay sii aadayaan ma jirto Soomaaliya ay soo noqoto ha midowdo intaasaan warkii
ooyaayo ilmadayga qubanayso qarnigeeniyo idilba wada gaadhaya fadaye waxaan la ooyaayo ilmadayga qubanayso qarnigeeniyo idilba wada gaadhaya fadaye ومدالي عيران